uu iska fogeeyay mas'uuliyadda heshiiska maxay ahayd sababtaasi مجتمع آية الله على خامنئي وأهل سيدات شيخ عبد القادر وحا أونا فرين ودردت كرير إيران فرين تاسينا وحا أي كساليسان تهاي إنو إسكا وريجيي أساقو إسكان فوقيي مركاسي هشيسكي أي صحيحين مدحونياشا مريكان كدونالد ترامب إيوه ميتكا إيران مسعود بشكيان وحا أو شيغي إن هشيسكاسي وحو البقو يهي ودش أريدانيو مسؤولية ديدا هقاميها waddankaasi Iran ama madaxweynaha dalkaasi Mas'uud Pezeshkian arrintu kama dhigna in Iiraaniyiintu ay ku kala aragti duwan yihiin balse waxa ay daba socotaa asal sidan oo kale heshiiskii 2015 madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhexmari jiray markaasi dawladda Iran hogaamiyaheedii waqtigaasi oo wiilkan aabihiis ah Ayatollah Ali Khamenei waxa uu xilligaasi isaga riixay sidan oo kale heshiiska markii la saxiixay Xasan Ruuxaani oo xilligaasi ahaa madaxweynihii dalkaasi Iran marka arintani waa arin soo jireen ah waxaynu ognahay intii heshiiskaasi dhiraandhirintiisa ay socotay in dhinacyada ay qusayso waddankaasi Iran ay ka hadlayeen hadii ay noqoto ilaalada kacaanka dalkaasi Iran saraakiisha ugu sarsareyso hadii ay noqoto maaragtay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Iran hadii ay noqoto afayeenka dalkaasi Iran iyo xataa hadii ay noqoto dhinaca kale to markii la dhaho mujtamaca Khamenei laftirkiisa dhamaantoodba si isku mid ah ayay uga hadlayeen balse haatan sida diblomaasiyadu malaha ay dhigayso madaxweyne ilaa madaxweyne ayaa saxiixay heshiiska waxaad ogtahay sidoo kale in dalka Pakistan xataa oo iyadu dul joogta ka ahayd heshiiska dhinacyada isla markaasina dhexdhexaadinaysa labada wadan waxa ayaguna u saxiixay dhankooda wasiirka koobaad ee wadankaasi ama ra'iisul wasaaraha wadankaasi Shahbaz Sharif marka dhinac markii loo eego waxa ay maraysaa arintu arin diplomatically heer oo maaragtay qaanadaha diblomaasiyadeed wadamada iskula hadlaan ku saleysan laakiinse kama dhigna in Iran arintu ku kala aragti duwan tahay muddo waa la hadalhayay haddana waxaa jiri doonto in maaragtay maanta oo saacado ay ka dhiman tahay in dhinacyadu ay u dabaaldegi doonaan heshiiskaasi oo isugu imaan doonaan haddii Allah wada la ogolaado dalka Switzerland waxa la warinayaa cabsi xooggan inay jirto oo ku aadan saacadaha yar ee ka haray heshiiska in markaas inkastoo la saxay laakiin fool la isku arko in uu burburo sababo ku aadan Israel marka adeegsid warbaahintooda waxay leedahay dhaqdhaqaaq xooggan ayaa ka soconaya gudaha Mareykanka oo ay wadaan saraakiisha Israa'iiliyiinta aad kugu dhow waliba xildhibaanada jamhuuriga oo la rabo qorshaan in la fashiliyo sidoo kale gudaha Israel labsadeeda dhaqdhaqaaq ayaa ka socda waa sidee maxay warbaahintu ka leedahay xitaa madaxweyne ku xigeenka ayaa la sheegay inuu ka hadlay Mareykanka warkii ugu dambeeyay bal maxaa laga leeyahay cabdiqaadir waa sidaas aad sheegtay waxaa jirta in JD Vance madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka uu hadlay waxa uuna si furan oo warbaahinta asagoo la hadlayay shir jiraa'idna ku qabtay aqalka cad uu sheegay in Israel golaheeda wasiirada ee dawladda Mareykanka u dulqaadan dooneen weerarada ay ku sameynayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump gaar ahaan arrimaha heshiiskan waxa kale oo jirto in xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Israel ay soo badbadanaysay si gaar ah markii la eego waayo waxaa jirtood ogtahay maaragtay intii heshiiskan dawladda Mareykanku ay dhiraandhirinaysay ama la waday dhanka Iranna maaragtay ay soo dhaweynayso waxaa jirta in Israel ay diiday inay xabajoojin sameyso Lebanon bay duqeynaysay kaliya intaasi ma ahane Israel iyo Trump waxay isku arkeen Netanyahu arrinkaasi xiisadooda cirka isku sii sharartay hadaad ogtahay shalayto intii uu ku sugnaa shirka G7 madaxweynaha dalka Mareykanka mar ayuu xataa si weyn u canjilay maaragtay isheeg ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu asagoo oo sheegay in maaragtay uu jiro hal wadan oo wuxuu yiraahday saas eragaas isticmaal hal wadan oo ka soo horjeeda heshiiskan ayaa jiru yiraahday kaasna wuxuu leeyahay please Bambi Grace sir ha ka joojin inaad duqeymaha ku wadid wadankaasi Israel Lebanon aan raahda Iran
annaguna waa ka didnuu leeyahay macnaha sida doqonnimadooda balfiiri waxa ay ku fakarayaan. Marka waxaa cad in dagaalkii ay wada galeen Mareykanka iyo Israa'iil inaysan ku wada jirin oo lagu kala xarag furta ayaa cad. waxaa kaleeto xiisaha u yeelaya arrinta waxay tahay in dagaalkii ay wada galeen labada wadan ay ku kala hareen oo hadda Israa'iil weli ay leedahay waa dagaalameena, halka Trumpna uu leeyahay anagu ma dagaalameena ee maaragtay nabadan qaadanayna oo xasilooni baan doonaynaa. Strait Hormuz in la furaan raba ayuu leeyahay Trump. durbaba maantadaas aan kula hadlayo waxaa jirtay in ciidamada Navy-ga Mareykanka ay culeyska ka qaadeen dekedaha dalka Iran dhaqangal inuu noqdo heshiiskii markii sidaas loo saxiixaybo, taasi oo muujinaysa in qodobada heshiiskan dhinacyadu inay dhiirigeliyaan ay ka go'an tahay. Marka arrinta ka sokow in maaragtay Israa'iil ay raadinayso inay sii xumeyso waxay u muuqataa hadda in dhinacyada kaleeta ay si rasmi u arkayaan Israa'iil dandaasigeeda. waa gartay weli waxaa taagan arrinta dalka Lubnaan. wararka soo baxaya waxay leeyihiin Mareykanku waxa uu isku dayayaa xitaa inuu la tacaamulo saraakiil ka tirsan ama gacansaar la leh Xisbullah oo maanta waxaa jirtay rag waaweyn in lagu soo rogay cunaqabateyn iyo xanibaado dhanka markaa Mareykanka kaga imanayay. waxaana la sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Lubnaan inay lacago ay markaasi ka heleen Xisbullah. waxaa ku jira siyaasiyiin caana sida qoyska reer Faranjiyeed rag ka mid ah, waxaa ku jira rag ganacsataa oo miisaan ku leh, waxaa ku jira shirkado waaweyn. maxay ka dhignaanaysaa rag Lubnaaniyiin ah oo gacansaar la leh in markan xanibaad lagu soo rogo saameyn intee leeg bayna u geysan kartaa Xisbullah tallaabadaasi Mareykanku u qaaday? arrintan si markii loo eego Cabdulqaadir waxaa laga yaabaa inay u tahay laab qaboojis dhinaca Israa'iil. si markii loo eegana Israa'iil iyo Mareykanku way kala xarag furteen oo macno badan ma sameynayso. waa la yaab sida tallaabadan waqti saacado ay ka dhiman tahay heshiiskii Mareykanka iyo maaragtay Iran in Mareykanku tallaabadan ay qaadaan. why now ayay Mareykanka wax badan isweydiiyaan markii wax ay dhacaan. maxaa hadda ku soo beega waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, waayo dadkan horey u soo jireen horaa cunaqabateynta loo saari karay haddii Xisbullah ay xiriir la leeyihiin oo la ogaaday ama baaritaano lagu ogaaday loogu saari karay. marka dhinac way noqon kartaa in Israa'iil in la qancinayo u muuqato oo weli Mareykanku uu leeyahay dagaalkii ka dhanka ahaa Lubnaan weli wuu sii jiraa. balse haddaad dhinac u eegtid markaad fiirsid dagaalkii bariga dhexe hal jiho unbuu weynankiisa iyo awoodiisa ahaa, jihadina waxay u muuqataa hadda in laga soo quustay. waxaa jira sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka dalkaas Iran lana yiraahdo Muhsin Ridai oo la taliye sarena u ah maaragtay hogaamiyaha dalkaasi Iran, ilaalada kacaanka dalkaasi Iran saraakiishooda kamida, kaasi oo sheegay jilbaha ayaan u dhignay ayuu leeyahay shaydaamadii. waa sida uu hadalka u yiraahday. marka Iran markaad aragtid hadda siday u hadlayso, sida ayaga loo baryayo loo daba joogo heshiiska qodobada ku jira oo qaar badan oo kamid ahmiyad gaar ayaga u leh hadday noqoto qodobka ku saleysan inaan hadda laga wada hadlayninba barnaamijkooda nuclearka, hadday noqoto dhaqaalaha loo ballan qaaday, hadday noqoto cunaqabateyntii laga qaaday oo dekedahooda aan mar dambe tala cunaqabateynin, dagaal dambe inaan lagu soo qaadeen. waxyaabo fara badan oo ku jira meeshaas heshiiska MOU-ga ilaa iyo haatan u muuqan kara inuu ahmiyad gaara uu u leeyahay dalka Iran. marka isku soo wada duubo ahmiyadu waxay tahay waqtigan ragga la saaray cunaqabateyntu waxay ku soo aadaysaa horta xilli aad iyo aad u adag muhiim ay u tahay xilligan wada xaajoodiyadii iyo dhinacyadii heshiiskoodii haddana ay la yaab noqotay sababta waqtigan keentay in dhinacyadu ay maaragtay soo saaraan cunaqabateyntan gaar ahaan dowladda Mareykanka. waxaa jira goordhaweyd saraakiil ka tirsan Mareykanka ama xitaa xildhibaano waaweyn oo miisaan ku leh marka laga hadlayo gudaha Mareykanka. waxaa ka mid ah senatorka dimuqraadiga Adam Schiff, waxaa ka mid ah Chuck Schumer oo ka mid ah ragga sanadka miisaanka ku leh marka laego hogaamiyaha dimuqraadigana lagu tilmaamo. waxay leeyihiin aad baan uga soo horjeednaa tallaabada Iran lagu siinayo in ka badan 300 bilyan oo dollar. aad bayna u weerarayaan heshiiska. raggii dimuqraadiyiinta markii hore waxay iyagu dalbanayeen heshiiska in la joojiyo.
maantana waxay weerarayaan heshiiskii. maxay Trump uga dhignaanaysaa tallaabada? dabcan dimuqraadiyiintu waxa ay ka eegayaan waxay tahay in Iran dhaqaale xoogan la siiyay, laakiinse waxa ay diidanayeen saad sheegtaba muddaba duqeymihii ku socda Iran, ayagooba xataa aad moodidba in marka ay joogaan Congress-ka sida u lobbying gareynayeen aad u malaysid inay Iran ay maaragtay u hadlayaan. marka waxay tani ka dhigan tahay dhinac markii laga eego maaragtay in ayagu mucaaradada ama waxa ay galaaska ay ku fiirinayaan siyaasadda Mareykanka iyo Donald Trump ay tahay oo kali ah in maaragtay ay ka hor yimaadaan wax walba oo Trump u wado. saas bay u dhignaan kartaa, waayo hadda heshiiska la galay ayay taageeri lahaayeen dimuqraadiyiintu hadday u arkayaan ahmiyad wax u leh Iran ay ka fiirinayaan, laakiinse waxay ka eegayaan markastaba Trump waxa uu sameynayo waa tallaabo qaldan, sidaas la aligeedna waa in dadka laga qabtaa. saas ayuu hadalkooda u dhacayaa dimuqraadiyiintu. laakiinse si kastoo ay ahaataba waxaa jirto in heshiiskan ay taageerayaan marka la eego xubno fara badan oo dowladda Mareykanka ku jira oo labada aqalba ku jira Congress-ka, hadday noqoto aqalka wakiilada iyo aqalka duqooda ee sanadkaba, muddooyinkaana waday arrimaha sidii loo dhimi lahaa xiisada bariga dhexe ama loo joojin lahaabo. marka waxay ka dhigan tahay guul weyn oo u soo hoyatay sida haddii uu yahay uu ku hirgalo labada wadanba waa Mareykanka iyo Iran. waqtiga hadda aan kula hadlayo waxaa jira hadal uu jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran Mohamed Baqir Ghalibaf, kaasoo fariin isagu ka hadlay. wuxuu sheegay fariinta hoggaanka ay jeediyeen saxiixa iyo isfahamka Mareykanka lala galay uu yahay bilowga waddo adag oo cusub, isagoo adeegsaday kelmadda waddo adag oo cusub isla markaana uusan ahayn dhammaadka caqabadaha. wuxuu sheegay xuquuqda shacabka Iran, danaha xuduudda Tehran iyo weliba kooxaha wax iska caabinta. Ghalibaf wuxuu ku eedeeyay dhinacyada ka soo horjeeda Iran inay hore u jibeen ballanqaadyadoodii. wuxuu yidhi in lagu xadgudbo heshiiska xuquuqda Iran iyo hanjabaadda, annagu digniin baan diraynaa buu yidhi. haddii cadowga isku dayo Iran in lagu qasbo shuruudo dheeraad ah ama markaasi xad dhaaf ah, Iran si degdeg ah ayay ugu jawaabi doontaa, jawaab military ayaan samayn doonaa. weli wuxuu yidhi ciidamadeenu waa diyaar, cable yurar ayaan nahay buu isagu isticmaalay. qoray fartayada iyo weliba keebka qoraygana waa isiistaan sida uu isagu leeyahay. tallaabadan iyadoo heshiiska la seexay saacado kaliya heshiisku ka harsan yahay in xafladda la dhigo, maxay ka dhignaanaysaa hanjabaadda Iran ka imanaysa? waxaa laga yaabaa in ay ka war heleen hadallo ka imaanaya dowladda Mareykanka gudaheeda. aad baa mukhaabaraadka wadanka Iran u sareeyaa, ama waxaa laga yaabaa in dhinacyadu ku jira wadaxaajoodka ay weli hadallo uga soo noqonayaan oo ku wajahan maaragtay wadaxaajoodka iyo qodobada qaarkood, maadaama Trump asna culaysyo fara badan oo gudaha uu dareemayo, gaar ahaan lacagta 300 bilyan ee dollar ah ee la siinayo wadanka Iran. waxaad moodaa Iraniyiintu in ay si weyn arrintan uga digayaan in dagaal uu qarxi karo, in si weyn ay uga dhex arkayaan dhinacyada ee qusayso colaadda inaysan dhab ka ahayn. dabcan waa suuragal waxa hadda lagu heshiiyey 14 qodob in wax ay Mareykanku uu ka bixi karo ama ay wax ka soo noqon karaan. marka hadday wax ka soo noqdaan Iraniyiintu maxay tahay booska ay taagan yihiin? waa sidaas sida ay u dhigayaan warkooda. dabcan waadna arkaysaa in maaragtay sarkaal siro ka tirsan wadankaasi Iran uu hadlay oo ilaalada kacaanka ah. tani waa mid kaleeto. marka waxaa laga yaabaa Iran waxyaaba ay isleedahay ma ku haboono heshiiska xilligan in ay arkayaan oo soo baxayo. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd wariyaha seniorka Zahra Cabdi Axmed oo khadka toos ugu jirta iyada oo ku sugan Virginia, Mareykanka, isla markaana si faahfaahsan oo qoto dheer nagu faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay weliba xiisadda Mareykanka iyo weliba Iran iyo heshiiska cabsida laga qabo inuu burburo Israa'iilna galaangalay u sameynayso wax walbana ay isugu dayayso sidii ay u burburin lahayd heshiiskan. Zahra, aad baad u mahadsan tahay. adiga mudan. daawadayaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waa dhammaantii isku duuban oo idinle nabadiino.